كان هذا نحتاجنا وقرون كوعيار دون بري هذه الله يراده إن شاء الله تعالى أمد الصومالية الملك الجوجان دعاء وصوب مران بلسان إن شاء الله تعالى قرون كان كصوب بحينا ويا ونقول تبين لك تجينه قدر إلهي معنا ما كان من إن شاء الله لك وقولي سنة لذلك عوض منا فرحتك وصحتنا رجعنا ciyaartoyda xulka qaranka macallimiinta iyo wafdiga hogaaminaysa xulka ayaa booqday garoonka Shahid Stadium ee ku yaala magaalada Castina ee caasimadda saddexaad ee waddanka Algeria waxaana xidigaha xulka daa'irta Soomaaliya ay magaalada saddexaad kula ciyaari doonaan dhigooda Senegal oo ay ku jiraan groupka A in aan Soomaaliya kaliya nagu faraxsaneen meesha aan joogno laakiin East Central ay nagu faraxsiin oo Real kamida Kenyanka ay joogaan taa isfaan maarta u farxan marka insha Allah la dadka Ilaahay waxaan ka baryaa in Ilaahay maarta sida niyadkeena oo ahaa inaan سقاف سأنصق هذا كان إلهي إنه نفض إن شاء الله تعالى في الكريم ولو دولة الله ديلينه رجال هيستو دولة الله ديلينه أنا حابب أبارك لكن ما أنت الانترفيو قلتيس عن مارتا كل شيء أنا إن مارتا كرسون بدلنا إن شاء الله تعالى في الكريم إلهي ذكس قدر إلهي معنا ما كان من إن شاء الله لكن وقولي سنة إلهي ذكس gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine iyo safiirka Algeria u fadhiya dalkeena Soomaaliya Ambassador Cabdiwahaab Macalin Maxamed iyo ciyaartoyda xulka qaranka ayaa soo gaaray magaaladan waxaana Bashiir Dheer oo ka tirsan guddiga fulinta xiriirka Soomaaliya kubadda cagta uu ka warbixiyay rajada xulka ee ciyaarta Senegal ساعة 4 ساعة مركي هذا أيام حنسوق قرن المجال كونستانتين لو قاعد ديارة 4 كونتن دقيقة كوسو جرني هوده مجال الله بعد أيام نبت قرون كان هذا نحتاجنا وقرون كوعيار دون بري هذه الله يراده إن شاء الله تعالى أمد الصومالية الملك الجوجان دعاء وصوب مران بلسان إن شاء الله تعالى قرون كان كصوب بحينا ويا ونقول تبين لك تجينه بريتنا نقول بنكر رجينا السنغال كلن كان إن شاء الله تعالى وكلن متقنا إن بدينا نوقع عن تهيئناك أيوة صوبحين لكن أنا قاعد رمينا صوبحنا أنا قيبتنا بكم كريسنا أو متقنا تجد كنا جرنا إن شاء الله تعالى وأنا جرنا دونا هذا متقنا ما أنتوا حاولنا مت فرصتي كاف وكفاء يسنا قرون كان بوقنا qaar ka mid ciyaartoyda xulka qaranka oo booqday garoonka Shahid ayaa rajo weyn ka muujiyay kulanka xiisaha badan ee la balansan yihiin dhigooda Senegal iyagoo dhinac kale ugu baaqay taageerayaasha xulka qaranka inay dhiirigeliyaan ciyaartoyda xulka Soomaaliya waxaad u fiican waaye laakiin rajada video sareysa insha Allah meeshan email ka fiican inoo calankeena ka baqataa nin guul daro goona u soo gal malahan inkastoo kubadda saddex ay wajah leedahay mid kamid ah qaadanaysa wadmanina badan arjeenina anagu faraxsan Algeria kulawana diileeraa mataliyaha gudoomiyaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta mudane Xuseen Abkow ayaa sheegay in xiriirka uu daal badan ku bixiyay horumarinta xulka daa'irta Soomaaliya ee markii ugu horeysay ka qayb galay koobka qaaradda Afrika ee 17 jirada nasiibkan uu ka tabakalena laakiin ciyaalka waa diyaarsan yihiin garoonkana maaragtay waa u jeednaa inuu garoon sax yahay oo sida hadda u joogna garoonka fiirsano oo sida yihiin calaamado garoon ma sha Allah waayo oo si fiican u diyaarsan ciyaalkeena waxay nasiibkeena siin way helayna laakiin natiijo ahaan iyo kalsooni ahaan waa isku kalsoonahay insha Allah waana dadaalina wixii Ilaahay nasiiyana insha Allah taala ku qarxi doona hadii ay beedo insha Allah si kastaba ciyaartoyda xulka dhalinyarada Soomaaliya ayaa rajo weyn ka qaba inay ka soo baxaan groupka A sidoo kalena ay natiijo wanaagsan ka helaan dhigooda Senegal waxaana kulankan xiisaha badan la sugayaa natiijada ka soo bixi doonto inta baa ku badin doona insha Allah garoonka waxa guulka waxa Soomaaliya ugu soo hoyn doona laga cabsan garoonkan waa garoonka Stadium Muqdisho camal waaye kana waxa wax keen karna dadkan ila wax keen karana aaminsan insha Allah haween doona anoo faraxsan waa seexanana